السلام عليكم. haddii tiirka la geeyay 500 qof ka badan ama taqaana u dhima doonto dadka jinni in sigaal iska daay xitaa ciidda oo doonto waxa talaabada qaadi doona aqoon waa wallahi waan u lahaa doona haddana saleebaanimadeeda aad igu weyn ma fahanto waxa dhaafsan kar ma jirta way yaraataba الله سلام haddana si calay hadduu dhimanaa xitaa ma taqaana wuxuu dhima doona asoo mushriga dhimanaayo asoo jareerooyna dhimanaa asoo wiil reexay saleebaan rabbi rag la dhima doona ninkan wuxuu ka soo jeedaa beesha saleebaan habar gadir asaga sheegtay in la qariima gacan lagu ma hayo ninkan lama qaban wali waa la laayay laakiin sidoo sheegay wuxuu yiri waxaan nafta dhaafineynaa 500 ka badan u kaaday markii ninkan fiiray asagana noloshaan ku gubeynaa asagay cidooda macalla hooyadiisii ku kuli guriga inaan ku gubnaan diyaar u nahay idinko anaga qudubkii oo sheeqaasha kulli aan waxba maqaneen waka saxaafada ka hadleen mikrofon la hadleen waxay dhashay dilo anagana kumanaan kale oo shaqaale ugu arintaas maxaa kaleeyay waxay shaqaale abuur karaan shaqaal ma gaaraane habagiir waa 3 qofood oo ku jirto lambar 4 dhex taagan haween oo macnaha loo wareejin jiray waxay leeyihiin noo banaan baxa war hadda run sheegaysaan kacdana oo imaada kacdana anaga wada fadhinaa ninka isagana wuxuu ka soo jeedaa beesha shaqaal qudub wuxuu leeyahay noloshan ku gubeynaa dabcan erayo aad u yaab loo adeegsaday labada ninba ninkan dambe oo shaqaalka ah xabsiga ayuu ku jiraa habeenkii saddexaad halka ninkan kaleeto isaga nolol iyo geeri meeshuu cagta dhigay la laayay lana raadinayo magaalada muqdisho labada ninba waxa ay ka falceliyeen xukunkii markii u dambeysay ku dhacayay Sayid Cali Macalin Daawud waxa xukunka kadib warbaahin gudaha muqdisho ka howlgasha laga soo daayay ninkan oo sheegtay in Sayid Cali uu ehel leeyahay oo luqad aad u adag waliba xaq jirnimadeeduna ay badan tahay ku hadlay waxa uu mareebaan ninkan dhalinyarada ah oo markaa fiirisid waxa uu afkiisa ka soo dhahayo iyo mas'uuliyadda ay leedahay ama dhibaatada ay keeni karto aan ku xisaabtameyninba wuxuu doono ku hadlay kadib waxa isna hadlay ninkan kale oo reer kaxda ah oo isagana u doodayay Luul Cabdiasiis oo isagana ninkii hore aan waxba ka roonaanin oo yiri habar gidir oo dhan waxa waaye waa la guba yacni luqad isagana aad u xaq jirta oo kii hore aan waxba doorinin ayuu ku hadlay labada ninba waxay mudnaayeen in hal mar lisla qabto lisla xiro ma suura galin mana dhicin taas kaliya sharcigu wuxuu degdeg u soo qabtay ninka reer kaxda ah oo sida la xaqiijiyay isaga oo bajaaj si raacay oo meel jida oo aan laga fili karin ba maraaya in indhaha gorgorka lagu eegay dhab la sii halka ninkan kaleeto oo isaguna warka kowgiisii horeba xanafta lah ku bilaabay ee baraha bulshada soo horgalay la laayahay cirib iyo jaan meesha uu dhigay indhihii gorgorka maan lagu fiirinin ma indho oo shiinaysan ku fiirin oo wax dheer arkeenin ilaahay og hase yeeshee ninkan waa la laayahay sida annaga xogta hoose aan ku helnayna marka ninkan la qabanayay 3 habeen ka hor ninkan kaleeto waxa uu shaah ku cabaayay ka soo horjeedka maqaayada ku taala masaajidka caanka ah Cabdali Cawareere ee degmada Warta Nabadda halkaas oo uu ku shaahinay laakiin dhinaca kalena waxa xabsiga ku jiray ninkan kaleeto oo isaguna loo heystay falcelinta uu ka sameeyay ninkan hore loo wareystay inkasta oo cadaaladda ay wili ku daba jirto soo qabashada ninkan waxa lama huraan ah in shacabkuna ay kaalin weyn ka qaataan sidii loo soo qaban lahaa ninkan maadaama la laayahay sida laamaha amnigu sheegeen meelna aan lagu haynin ilaa hadda ninku intuu aaday talow waa su'aal u baahan jawaab ninkan kaleeto ee kaxda laga qabtay waxa la sheegay in qabashadiisu waqti badan aysan qaadan sida ku suura gashay ma fahmi karno laakiin bajaaj isagoo sii raacaya oo xaafadiisa u socda ayaa bajaajkii lagu dul tagay dhab manin markiiba hore laga akhrin karaa wajigiisa oo hore laga fahmaya saasa sahashay dad waxaa jira mugta hal mar haday aragtay hore qof kasta uu ka fahmaya dad 10 jeer haday ka hor imaadaan aad soo qaban karin ninkan kale masaasa keentay ma fahmi karno laakiin ala itixaal waxa xiran ninkii reer kaxda ahaa waxa xabsiga ka maqan oo cadaaladda aysan wili hor keenin ama la haynin ninka dhalinyarada ah ee isagana reer cadaalad ah oo warka xanaftiisa soo horay aniga waxaan aad u taageersanahay labada ninba in ciqaabta ay mudan yihiin ay maraan laamaha amniguna in si wada jir ah arintaas ay u soo bandhigaan ayaa qurux badan ama qurux badnayd
si kasta ha noqoto ee sharciga markasta sareeya labada ninna waxaa waajib ah in ay dhadhamiyaan warka kicinta leh ee ay sameeyeen ciqaabtiisa oo si siman labadooduba sharciga ay u maraan ninkan hadda baxsadka ah ilaa intee ayuu baxsan doonaa waa su'aal runtii aan jawaabteeda halkan ku helin laakiin rajada markasta waxa waaye in laga quusto ma ah waa lagu daba jiraa la yiri waxaan rajeynaynaa annaga naftigeena dhacayna ka raadino shacabkana ay noo soo gudbiyaan ogeysiis qiimo dhibis 50% dhammaan qallimada guud iyo qallimada casriga oo laysana waa jaaniskaadii ka faa'iideyso oo soo booqa Muqdisho Specialist Hospital Somali Sudanese Specialist Hospital waa isbitaalka ugu fiican dalkeena waxa uu ku guuleystay markii afraad u xiriir ah abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeena waxa ka howlgala dhaqaatiirta ugu fiican ee dalkeena Soomaaliya joogta bukaankii tagaa wuu qancaya aad minaad naftaada rabto hadii kalena xaan kuugu aalhe